شنتاتي الإسلام وجرتك إبهي اجمد محمد كيني أوجد صلاة صون زكا ذول بحيو حج كله أوذا. Kimi kaynaklar bu yağmada 200 bin, kimi kaynaklar 400 bin kişinin katledildiğini söylüyor. Bağdat'ın her biri asırların emeği olan camileri, sarayları, kütüphaneleri. ibnu kathiir wuxuu kitaabkiisa albidaaya wanihaaya ama bilow ilaa dhammaad wuxuu ku sheegay in ibnu calqami oo wasiir u ahaa almuctasim waa khaliifkii ugu dambeeyey ee dowladdii cabbaasiyada. wasiirkan oo shiico ahaa wuxuu qayb weyn ka qaatay ku soo hagidda ciidankii holaako ee tataarka kuwaasoo ku soo duulay dowladdii islaamka ee cabbaasiyada. ninka shiicadahaa colaad iyo xumaan uu u qabay dowladda islaamka wuxuu maleegay shirqool uu doonayay inuu ku burburiyo dowladda islaamka isaga oo ku soo hagay cadowgii tataarka ee soo jiiday qaybihii bariga dowladda ilaa ay u soo tallaabeen magaalada Baghdad ee ahayd caasimadii dowladda. tallaabooyinkii uu qaaday ee uu ku shirqoolay khilaafada islaamka waxaa ka mid ahaa ugu horreyntii wuxuu ku tallaabsaday inuu tirada ciidanka dowladda yareeyo isagaa inta badan ruqseeyey qaarna mishaaraadkii ku yareeyey si ay isaga tagaan. arrintaasi waa uu ku guulaystay. waxaa la tilmaamaa in tirada ciidanku ay ahaayeen ilaa 100,000. howlgalkaas uu sameeyey wuxuu tirada ciidanka kaga dhigay ilaa 10,000. khaliifkii muslimiinta ee almuctasim wuxuu ugu sheekayn jiray in ciidanku aad u heer sarreeyo tiro iyo taya ahaanba. wuxuu si aad ah uga ilaaliyey khaliifka inay gaadhaan dhammaan fariimaha iyo qoraalada ay culimmadii iyo waxgaradkii u gudbinayeen iyaga oo uga digayay khatarta soo socota. sidoo kale wuxuu ka ilaaliyey inay u galaan oo ay warbixinta dhabta ah ee khatarta cadowga siiyaan. tan kale wuxuu sameeyey inuu xidhiidh qoraal ah la sameeyo hogaamiyihii tataarka isaga oo ku dhiiri gelinayay kuna damac gelinayay inuu ku soo duulo magaalada Baghdad si uu u qabsado. una tilmaamay inuuna ciidan xoog la jirin khaliifka iyo maamulkiisuna aad u liitaan oo ayna iska caabin karin tataarka. ugu dambeyntii wuxuu khaliifka ku qanciyey in holaaka uu doonayo heshiis ee una rabin inuu Baghdad qabsado haddii kala badh oo badh la siiyo wax soo saarka Ciraaq inuu iskaga noqonayo. arrintaasoo ahayd been abuur uu doonayay inuu khaliifka u tuso inuuna dagaalamin. hogaamiyaashii iyo culimmadii ka hor yimidna uu khaliifka ku diray ilaa uu khaliifkii muslimiintu ku qancay in holaaka doonayo heshiis. kadibna isaga waa khaliifka reerkiisii howlwadeennadii dowladda culimmadii iyo ganacsatadii magaalada Baghdad iyo dhammaan waxgaradkii waxaa loo diyaariyey inay la kulmaan holaako oo magaalada duleedkeeda ciidankiisa la dul taagan. wuxuu ibnu kathiir raxmatullaahi caleyh kitaabkiisa ku xusay in qiyaastii dad gaadhaya ilaa 700 oo qof uu khaliifku hogaaminayo oo isagu jira howlwadeennadii dowladda yacni madaxdii culimmadii ganacsatadii waxgaradkii magaalada Baghdad ay hortageen holaako halkaasna lagu wada gowracay. waxaa la yidhaahdaa ninkii la odhan jiray Nasiruddin Adusi oo ahaa nin shiico ah kana mid ahaa firqada Ismaaciiliya uu holaaka la socday una ahaa la taliye kula talin jiray sidii uu muslimiinta sunniyiinta ah u xasuuqi lahaa magaalooyinkoodana u burburin lahaa. ninkaas iyo ibnu calqami ayaa kula taliyey inuusan la heshiin khaliifka isaga iyo cidda la socotaba uu laayo kadibna magaalada Baghdad burburiyo. ibnu calqami iyo Adusi waxa ay u arkayeen in Baghdad tahay qalcadii sunniyiinta haddii la burburiyo dowladdii khaliifada ahayd la baabiyo in calankii shiicadu taagmayo iyaguna ay awood u yeelanayaan inay fikirkooda dadka ku faafin karaan waayo dowladdii iyo culimmadii hor taagnayd haddii meesha laga leexiyo inay fursadaasi helayaan. taariikhdu waxay xustaa in magaalada Baghdad xilligaasi 1258 oo holaaka soo galay lagu laayay ilaa 2 milyan oo qof. sidoo kalena lagu baabiyey hanti aan la qiyaasi karin masaajidyo guryo iyo beero intaba la burburiyey. waxyaabihii ugu darnaa waxaa ka mid ahaa maktabadii ugu weyneyd dunida xilligaasi ee Daarul Xikma oo malaayiin kutub ah itaalay in kutubtaas lagu guray webiga Dijla. musiibadaasi muslimiinta ku habsatay waxaa sabab u ahaa xiqdiga iyo xumaanta shiicadu u qabto dadka muslimiinta ah ee sunniyiinta. labadaasi nin ee mujrimiinta ahaa ee sababay musiibadaasi maanta shiicada joogta waxay u arkaan haliyeeyo taariikhda baal dahab ah kaga jira